والسلام على رسول الله وزيرك وزارة حنان حولها وزيرك وزارة عافمادك وزيرك horumarinta haweenka iyo qoyska wasiirka ganacsiga wasiirka xanaanada xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiyaha guddiga horumarinta dhaqaalaha gudoomiyaha bunsa madaxda kale iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhakhtarada iyo khubarada caafimaadka xoolaha halkan fadhiya miidiyaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore wasaaradda iyo wasiirkeeda waa ku hambalyeynaya munaasabadan muhiimka ah waliba doorashadii sideedaad ee u qabsoonta ururka dhakhtarada xanaanada xoolaha runtii waa farxad weyn bay tahay tira intaa leeg oo dhakhtaraa inaynu leenahay oo ay Puntland leedahay intii dowladda Soomaaliyeed dhalatay 60kii laga soo bilaabo wasaaradda xanaanada xooluhu doorkii lahayd ma helin dadaal badan iyo shaqo badan waa laga qabtay ay sabab tahay bulsho waliba waxa ay u badan tahay leedahay waxa ugu badan la hormariyo weeye boqolkiiba 70 dadkeena waa xoolo dhaqato boqolkiiba 80 dhaqaalaheenu wuxuu ku xidhan yahay dhoofka xoolaha nolosheena intii badnayd waxay ku xidhan tahay xoolo bulshadeena boqolkiiba inagu percentka beeralaydu waa kooban yahay waliba marka Puntland laga hadlayo beero hadda ay nagu cusub yihiin kalluumaysigu ma badna waa jira laakiin isaga laftigiisa inuu bad u leenahay 1600 ugama faa'iideysano laakiin dadkeenu abkaab waa xoolo ku nool waa xoolo dhaqato waliba xilligan waxa aad nasi wanaag u sii haddana dadka reer magaalka ay fahmeen nolosha xoolaha oo hadda ay xoolihii dhaqayaan adag aragteen xilligan inuu yahay xilligii geela ugu badnaa aynu dhaqanno waxaan rajaynaynaa insha Allah siyaasadda dowladda 5 sanadood qorshayaasheeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah horumarinta xoolaha iyo dhaqashadooda iyo sidii taabotay la kor ugu qaadi doorashada waa hambalyeynaya ilbaxnimo ka muuqata in la isboorto oo hoggaan la doorto oo hoggaanka karti iyo hibro leeyahay lagu doortaa waxyaabaha ummaduhu ku horumaraan ay ka mid tahay walibana xirfadleyda iyo dhakhtarada waliba aan jecelahay in wasaaradaha kale xirfadlayaasha ah oo wasiir qorshe waa joogaayo caafimaadku ku xigo insha Allah munaasabad xigtayna aanu ka qayb galay doorto tiimkii dhakhtarada isku dooranayay martii qowl xoolo dooratay qolada caafimaadka dadka insha Allah waa rajayn doonaa runtii wasiir Maryam himar lagu wada jirtay bay taabtay ahayd inay codsato gabdhaha in door la siiyo gabdhaha Soomaalidu dunida gabdhaha ugu kartida badan markaan hadda dunida kala tagnay ma dayga damay gabdhii waa gaareen runtii dadka galbeedka tagay dadka ugu badan ee siyaasadda ku guuleystay Sweden waxaa ka dhacday gabadh Soomaaliyeed oo bacya inay xisbi iska sharaxday liiska u dambeeyay way ku qoreen way ka xanaaqday inay soo baxeen bay waxa cusubtay inay sidii loo tartami karto Sweden oo dhow waxay noqotay xildhibaanada ugu codka badan leh marka waxay yiraahdeen xildhibaankii qabiilka ku guuleystay aslig Soomaaliba aslig baa waxa lagu doortay dad jinjiga ka soo jeeday marka gabdhaheedu way karti badan yihiin haddana way aqoon badan yihiin wali markii dalku burburay ninkan gabadha ma gobol noqday istadibadaha markii loo baxay ragii faamiyadu way ilaaween gabdhaha marka doorka gabdhaha la siiyay walaal Dr. Maxamed Jaamac wasiirka tilmaamay inay tixgelin weysiin doonaan waa kugu hambalyeynayna wasiirka oo kula dardaarmayna inuu hadda midkeeda fursad la siiyo runtii waa wuxuu soo tartamay inuu wax qabto laakiin gabdhaheeda inuu tanaasulo insha Allah mar walbana gabdhaha ku dadaalo doorkooda in la siiyo waa hambalyeynayna barnaamijka